muuqaanan waxaynu uga hadlaynaa hogaamiyeyaasha adduunka ee ugu saameynta iyo awoodda badan ee aynu helay liiskooda, kuwa oo kala sarreyntan ku kasbaday awoodda gudo iyo dibadda ee ay siyaasadoodu leedahay, iyo sida hogaamintoodu saameyn ugu leedahay dadka dalalka ay maamulaan iyo ummadaha kale ee ku nool dunida inteeda kale. waxaynu si qaasa u eegi doonaa 8 hogaamiye ee haatan loo tiriyo inay ugu awood iyo saameyn badan yihiin dunida. 1. Rajab Tayyip Erdogan. madaxweynaha haatan ee Turkiga waxaa tareenkiisa saameynta bulsho iyo awoodiisa siyaasiga ah ka soo bilaabatay 1998 oo uu 10 bilood u xiraa xiisad diimeed oo lagu eedeeyay inuu kiciyay. xilliga la xiray waxa uu ahaa duqa magaalada Istanbul. markii uu xabsiga ka soo baxay 1999kiina waxa uu ka mid noqday asaasayaasha xisbiga haatan haya talada dalkaas ee lagu magacaabo AK Party. Erdogan waxa awoodiisa hogaamineed ee sida xawaaraha leh u xoogeysatay u sahashay inuu saameyn togan ku yeesho guud ahaan hay'adaha dastuuriga ah ee dalkan. bilowgii oo uu ra'iisul wasaare ka noqday dalkan waxa uu bilaabay dib u qorista dastuurka dalkan iyo dib u soo celinta manaahijtii islaamiga ah ee dalkaasi oo horey meesha looga saaray nidaamkii kala sarreynta awoodaha madaxda dalka oo uu u bedelay madaxweyne ku-xigeen halka uu bilowgii ahaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. waxaa sidoo kale awoodihiisa ka mid ah inuu si toos ah u magacaabo madaxda sare ee dowladda sida madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada, isagoo docda kale dib u habeyn togan ku sameeyay nidaamyada sharciga ee waddankan. markii uu ra'iisul wasaaraha noqday 2003 qiimaha lacagta liirada ee dalkaasi waxay ahayd 1.6 halka ay haatan tahay in ka badan 1.8. awoodiisa hogaamineed ee koraysa waxa ay marka xanaajisay dadka haysta diimaha kale ee aan islaamka ahayn sida Christianity-ga. waa markii uu July 2020 dhismihii hore kaniisadda u ahaa ee Hagia Sophia masaajidka u bedelay. 2. hogaamiyaha xukuumadda Yuhuudda ee Benjamin Netanyahu ayaa ilaa 2009kii ra'iisul wasaare ka ahaa xukuumadda Yuhuudda ee Israel. wuxuu sidoo kale mar isla xilkan ku soo shaqeeyay sanadihii 1996 iyo 1999kii oo uu si ku meel gaar ah booskan ugu magacawnaa. 1997 ninkani waxa uu hogaaminayay koox ka tirsanay sirdoonka Yuhuudda ee Mossad oo isku dayay inay shirqool ku dilaan hogaamiyihii waagaas ee ururka Hamas Khalid Marshal. waxaana isku daygaasi dhacay 3 sano kadib markii labada dhinac ee Israel iyo Falastiin ay kala saxiixdeen heshiis nabad ku wada noolaansho ahaa. ninkani inta uu talada hayay waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dhinaca koboca dhaqaalaha iyo siyaasadda oo uu uga adkaaday xisbiyadii mucaaradka ahaa oo uu lafahaantooda kala qaybin ku sameeyay si aan awoodda loogula loolamin. 3. Mohammed bin Salman Al Saud. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman waxa uu ilaa 2015kii goortaas oo aabihii saldanada boqornimada la wareegay noqday shakhsi saameyn weyn ku leh siyaasadda iyo habnololeedka bulshada gudaha dalkiisa iyo xitaa siyaasadda guud ee dibadda. 35 jirkani waxa uu noqday qofka koowaad ee looga haybeysto hogaaminta siyaasadda arrimaha dibadda dalkan shidaalka qaniga ku ah oo la sheego inuu bedelay wajigiisii qadiimiga ahaa tan iyo intii loo caleemo saaray dhaxal suganimada boqortooyada. khafiifinta sharciyadii adkaa ee horey loogu dhiqi jiray haweenka waddankan, sida inay gaadiid ku dhex wadan karaan gudaha magaalooyinka, ciidamada ku biiri karaan, ganacsi khaasana samaysan karaan, dib u habeynta dhaqaalaha waddanka iyo furfuridda siyaasaddii xirxirnayd ee dalkani la lahaa caalamka intiisa kale ayaa ka dhigaysa daa'irkan mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu saameynta badan waqtigan. 4. Kim Jong-un. Kim Jong-un waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi laga soo bilaabo 2011kii. sidoo kale waa madaxa xisbiga shaqaalaha ee dalkaas. ilaa intii uu la wareegay talada dalkan waxa uu hogaamintiisa gundhig uga dhigay gacan bir ah oo uu ku maamulay rayidka dalkan. inkastoo la sheego inuu kobac dhinaca dhaqaalaha ah iyo dhismayaasha muhiimka ah sameeyay, haddana Kim waxa la wariyaa inuu go'doomin xooggan ku sameeyay dalkiisa, waxaana xaaladda sii cakirtay horumarintiisii nidaamka nukliyeerka ee dalkaas oo carqalad xooggan ka dhex kiciyay isaga iyo dalalka kale ee quwadda leh sida Mareykanka oo ay marar kala duwan labada dal qarka u fuuleen in dagaal ka dhex qarxo. 5. Narendra Modi. Modi waa ra'iisul wasaaraha haatan talada haya ee dalka labaad ee adduunka ugu dadka badan, Hindiya, oo la sheego in hogaamintiisu wax badan ku soo kordhisay nolosha dadka dalkaas, dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda. waxaa la wariyay in ninkani la yimid aragtiyo miro dhalay oo dhinaca horumarinta dhaqaalaha, maalgashiga iyo dimuqraadiyadda dalkaas ah. waxaana dadaaladaasi sahleen in 2018 dalkani noqdo kan ugu dhaqaale kobca fiican adduunka. 6. Xi Jinping.
hogaamiyaha dalka adduunka ugu dadka badan iyo dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan waxa baarlamaanka dalkaasi meesha ka saareen muddaxileedkiisii xadidnaa 2018 taas oo ka dhigan inuu cimrigiisa oo dhan kursiga ku fadhiyi doono waxaana uu kaalintan hogaamiyeyaasha ugu awooda badan dunida ku soo galay qorshihiisa la dagaalanka musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha wadanka dhismaha ciidamada iyo siyaasadiisa xiriirka caalamka oo ah mid ku salaysan dagaal adag oo uu kula jiro quwadaha kale sida Mareykanka oo ay isku hayaan dhinaca ganacsiga iyo juqraafi siyaasadeedyo kale. 7 Vladimir Putin doorashadiisii 2012 kadib Vladimir Putin waxa uu noqday mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu saameynta badan adduunka in ka badan saameynta uu gudaha dalkiisa ku leeyahay ayuu ninkani ku leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda saameynta ugu badan waxa uu ku yeeshay dalalka Yurub oo badankood haatan ku tiirsan shidaalka Ruushka la wareegistiisii hogaaminta Ruushka waxa si xooggan u kobcay dhaqaalaha dalkan. Putin waxa uu helay 76 codadkii la dhiibtay dib u doorashadiisii 2018 goortaas oo loo doortay muddaxileedkiisa labaad ee ugu eeg 2024 dhinaca kale waxa uu dib u habeyn xooggan ku sameeyay ciidamada difaaca Ruushka iyo hubka dalkaasi. 8 Joe Biden hogaamiyaha la doortay dhamaadkii 2020 ee Mareykanka Joe Biden waxa uu saaxadda siyaasadda la yimid dardar ku wajahan wax ka qabashada dhinaca xaaladihii cakirnaa ee kolkii uu xilka la wareegay ka jiray gudaha Mareykanka waxa uu la golo yimid mashruuc uu ugu yeeray samata bixinta Mareykanka ka oo daaranaa la dagaalanka cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo dalka saameyn xooggan ku yeeshay dib u kabidda dhaqaalaha iyo la dagaalanka cunsuriyadda iyo kala qaybinta Ameerikaanka. go'aanadii uu qaatay maalmihiisii uu horeeyay ee xilhaynta waxa kamid ahaa dib ugu noqoshada dalalka uu ololeeya la dagaalanka isbedelka cimilada oo Donald Trump uu ka saaray Mareykanka dib ugu noqoshada ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo isagana Donald Trump uu ka saaray dalkan iyo qaadista xayiraadii dadka dalal badan oo islaam ah laga saaray tegista Mareykanka halka uu 4 February 2021 ku dhawaaqay in Mareykanku uu joojiyay taageeradii uu Sacuudiga ku siin jiray faragelintii ciidan ee dalka Yemen.